nabadgelyo korkiina ahaata daawadayaal meel walba si walba oo u daawanaysaan barnaamijkan kaftan iyo kululeysi waa xilqadiisa labaad toddobaadkii labaad toddobaadkan barnaamijku wuxuu noqon doonaa mid ka xiiso badan kii hore sida kuwa bala qaado barnaamijku waa mid kaftan oo kaliya magacaygu waa maxamed ibraahim ayaan ku soo dhawaada barnaamijka kaftan iyo kululeysi واتهاي برامجك قضب كوهر كسو قادن دينا مان waxa waaye magaalada Hargeysa waa saarnaan toddobaadkii hore waa saarneen kama dagi doon ilaa xad magaalada Hargeysa la socotaan toddobaadkii hore ama toddobaadkan kii hore wuxuu ahaa sport laakiin toddobaadkan xiisiisa gaar ku yeelan doona magaalada Hargeysa toddobaadkan waxa laga xusay xuska inta sanadka 100 iyo zamaana ka soo wareegtay ma aqaan xuska askar Ingiriis oo lagu laayay dagaalka labaad adduunka I don't know waxa ka galay magaaladaas ama محل دلك الصومالي جارهن لكن هدي قميصي حلقي سوق لما هذا ما قام وحنا نوصي دبتاعية يدت كي سبب دجال كله بدون كأسكرت وجيرة إنجليز كودمون بدن أمريكا وكميديا يوروب وحلاقة حس مجال هرجيسة لكن شيء كذا ويكجد سنتها شيء كذا براها بالشدة وحال كل الأحمر مقالة صورة موجنا إن مجال ذي يكتال مجال هرجيسة يكتاله كنيسة وين أو كل هرنا الله شيء إن كنيسة الحريق أما الله بمركز اللي بجوجيبه وحي هاتبا dadka reer Hargeysa ayaa waxa laga qaaday codad la weydiinaa bal sidee idin la tahay in magaalada Hargeysa ay ku yaaleen ama ay ku taalaba kaniisad weyn bal nala dhageysto wax yar nala daawada qayb kamid ah dadka la weydiiyay bamba kaniisad ba iyo ma taqaana sanan ba inoo ah waxayno ah sidee sheegayaan waa basana baynu caabinaa baarmo ogolin baanu ku niri ma ogolin waar kaniisada anagu dad islaamaanu ma ogolin كله واحد رمي سائل بلشة إيسا بكورهين وح يكور هايان الله أو أبو رتمجرتو معلوم مركو حد عذا قضب كمركز يالا أسوق الله كينا لكن واقعي كمدة وحن دريما إن إجران ولي وحيابا بدن أو كل حقر سن مقالة إيه مقالوين بدن الصومالي كمدة بس وحارتينا إن ساعدها إيه وقتي إذا صوص عذا إيه معلوم كده مس إيصاب موجزين بتوعنا مصي صارنا دون قضب كان وقضب كنا وحي قاعد دبوسي كله دون وقتها dhageystayaal iyo daawadayaal mar labaad iyo wali way soo dhaweynaa mar saddexaad qodobkeena labaad wuxuu noqon doonaa guddiga baarlamaanka Soomaaliya soo la socotaan toddobaadkan waxa baarlamaanka Soomaaliya la hor keenay koox ama waxay ahaadaanba koox ama iska dhahno oo loogu magacaabay in ay la dagaalami doonaan musuqmaasuqa aan ogna musuqmaasuq inta lixaad kale ama inta uu Soomaaliya saameyn u ku yeeshay ma ahan oo kaliya musuqmaasuq waxa ka dacwoonaya shacabka oo kaliya xildhibaanada baarlamaanka wasiirada xilla heer sare wada gaartay muuqaal yar oo iga yaabiyaan wax yar ka daawaday muuqaalkii ay soo galiyeen maxaa la baarlamaanka dood ugu dambeysay ka sameeyeen bal horta markuu horeeyay xildhibaanada ila daawada waxaan u soo kacay guddiga musuqmaasuqa horta musuqmaasuq maanta waxa leedahay musuqmaasuqu meel walba galaa musuqmaasuq nin arko sheegay ma lahayaa lama hayo nin musuqmaasuq arko sheegay marka musuqmaasuq nin arkaa ma sheegee guddigan waxa la idinka rabaa inaad ansixisaan shaqaalaha ee la soo magacaabay wasiirkii keenana uu ku wanaagsan yahay qoladii soo magacaawdana uu ku mahadsan yihiin rag shaqo la'aan shaqo loo yeelay marka raggaas sidii hor jooga ee iyagana aan naqaano hal ansixiyo hal laga daayo culayska badan saaraysaan musuqmaasuq idinku arki weydeen oo qaban weydeen ma iyaga u diraysaan idinka baarlamaanka qaban waayo marka iyaga u diraysaan iyo maxay qaban karaan masaakiintana walaalaynina shaqo ansixiyo codka siiya aniga horta xildhibaanada hadalkeeda ma ku haystaa xildhibaanada oo maxay tiri war isaga coday tiri baashan hal coday tiri codlaha loogu dhuftay tiri hal ugu kala taga meesha dareema marka baasha meelay ka socotay iyo meelay u socotay aan kala aqoon cadaaladda guud ahaan waxay saameyn ku wada yeelatay ama cadaalad la'aanta waxay saameyn ku wada yeelatay dalka idil meel walba ka jirto kan ugu koray iyo kan ugu hooseeyo school maxaa la yiraahdaa wasaarad maxaa la yiraahdaa shaqaale maxaa la yiraahdaa waxay ahaato laakiin waxa arintaas oo dhan soo gabagabaysay xaliimiyare hadaa la socotaan wadaadii maalin soo caan baxday markii covid-19 uu soo darsaday mar walba soo baxay xaliimiyare bal horta wax yar la daawada annaga waa iimaanay waxay leeyihiin wax daawo oo aan constituency-gay u geeyo daawada waxa waaye
weliba markuu soo dhow yahay doorashada waa qof walba inuu daawo qaado isku soo masawo ana waxaan oo ma bakaaraha ka gadatid adaa isharxay ani ma isharxay wasaaradda waa lay dacweey xas cali khayr adiga maxaa waa dacwada waxaan ku yiraahdaa rabti inaan wax sameeyo ha dhageysan iyo ka ani dhageyso haddii ayaga aad dhageysatid aniga waa iska baxaya horta xoogdeena meeshan ku jooga xisaan kuma jooga واساس واركيسان xildhibaana ka dacwoonay heblaaya dacwoonaysa heblowa dacwoonay shacaba dacwoonay qof walba dacwada iyo hortaala balse xalimeera inay noo soo gabagabaysaa dareemaysaa waa qayb kamid ah kaftankeena kaliya waxaan ka damacsanaa hore in kugu sheego waa kaftan qodobkan ugu dambeeya intaana ka bixin qodobkan ugu dambeeyana aadin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Roble dhawaan wuxuu aaday laftirkiisa uu soo booqday qayb kamid ah maxkamadaha qayb kamid ah meelaha cadaaladda iyo qayb kamid ah wasiirada meelaha fadhiisanayeen goodintii ugu adkeed uu ra'iisul wasaaraha ku dhuftay bal horta waxay rabtay ila daawo intaana comment ka bixin adduunkan kama dhamaanayso cabasho iyo intaan noolnahay intaan ka dhimanayno ilaa aakhir laga gaaray waxay way soconayaan waxa loo baahan yahay wanaajin iyo ka warhayn shacabkan xaqiiqda marka idin sheego iyagana waa dhiban yihiin ya haddii 25 kaas oo wax soo eeday adhaysiin waa eedaysanayaasha waxa jirto qaar saxan uga jiraan soo ognahay dhamaanteen suuqa waa la xiriiraa teleefoonadeeda weli aniga ma dansano waa leela soo xiriiraa saan hore idinku sheegay hadaan u sheegay galaaliya waa in cabashada wax laga qabtaa dadkan waa dadkeen meel ay aadan ma lahan meel ay ku caawdaan ma lahan cid u maqan ma lahan waxay sugayaan waa garsoorkii cadaaladda marka waa in sida ugu horeysa wax looga qabtaa anigana halkan waa u soo badnaanaya maadaama aan u yahay cadaaladda tiirka koowaad oo ahmiyadda siinayo ayaay iska ilaaliya hadda ra'iisul wasaaraha waa idin dhaartay kulay wuxuu yiri xafiisan ka furan la meeshan sa u ogaad waxa sameynaysin yey kuwa idin taala marka sheekada la adeer waxaan dareemaa dhiig fresh ku jira mudan ra'iisul wasaare laakiin ma aha booskaagi ma ahna u maleynaa meeshan lagu talagalay ma kulay Sweden taada ku rajayna laakiin musuqa meel walba uu saameey waxaan xasuustaa dhawaan nin muwaadin Soomaaliya oo afgooy ka soo lugayo xamar yimid passport soo helay ama ID card soo helay labadaba tan ka raacday ilaa 7 maalmood iska dax wareejina maalmo meel ka tagay dacwo walba geynay war xitaa balan xitaa daa qabsata lagu siinin marka waa qayb kamid ah marka maxaa la yiraahdaa hadaanan shacabku iyo xildhibaanada iyo kulli aan la iska warhaynin waa qayb kamid ah musiibada ee musuqmaasuqa maalmo ban haysto waxaan rajeynayaa in shacabku u dambeyn uu ka dhamaan doono arintaas waa tahay qodobkeenan ugu dambeeyay Sacuudiga markaan Soomaaliya ka tagayna Sacuudiga saa la socotaan kal hore waxa la ansixiyay in ma la ogolaadaba in la heli karo ama gabdhaha Sacuudiyaanka ay ku laafiyoon karaan wadooyinka dhexdeeda eeyaha waa qayb hore loo sameeyay laakiin sheekadeen maanta way ka gedisan tahay sheekadaas Sacuudiga hogaamiyaha qamiiska weyn iyo midka kale Carabka kale oo Imaaraadka waxay isku waafaqeen ama fureen toddobaadkan dhexdiisa xarun ama meel loogu magac daray night club waa qayb kamid ah horumarka Sacuudiga ku sii talaabsanayso night club kaas la isku waafaqay in la furo bal horta waxay muuqaalka ila daawada waxa arkaysaan waa amiir Marya Weyne iyo amiirka kale ee Imaaraadka oo markaasi ugu sawirta ku jira gabdhihii quruxda badnaa soo marka arkaysan qayadii la lahaan doonta laakiin waa qayb kamid ah horumarka Sacuudiga ay ku sii talaabsanayso marka laga soo tago meesha kaliya oo ahayd islaamka in loogu soo hagaagi karo in ay wax walba ka noqon toddobaadka hore waxaan aqriyay xataa article ama maqaal waxaan arkay journaladan oo Europeanka ku qoreen in la hadda la helay ama la ogolaaday ama ii soo baxdaba qayb kamid ah eeyaha meel lagu rabaayadeen karo qayb eeyaha dadka ay dhigan karaan sheekadu way sii balaaranaysaa bal horta muuqaalkan wax yar isla aragno
هو أول شيء لأنه ما في مكان في السعودية الناس تقدر تاخذ كلابتها له، فأي مكان الكلب يطلع له يكون ممنوع، وهذا شيء ممنوع من كذا جهة حكومية. فعشان كذا أنا قررت أجمع أصحاب الكلاب في مكان واحد بحيث إنه يستمتعون ياخذون راحتهم والكلاب تنبسط بنفس الوقت يعني. waataas ummad markii sii horumaraysa ama waxyaabo waaweyn kusii talaabsan wax ku ogaan kartaa markaas oo kale waa qayb ka mid ah kaftanka laakiin markaad dhib u fiirisidna waa meesha kali islaamka meesha maxaa la hadda ugu sii dambeysay ama calaamad u sii noqon doonto oo la sii tirtiri doono shacabka marka ma night clubs iyo ay la qaati iyo dhar la dhigtay iyo dimuqraadi qaab xun loo raadiyay waa qayb ka intaasaan kusoo gabagabeynaa barnaamijka waa kaftan iyo kululeys hore idin kugu sheegay mar walba kama cudur daaran karo raalli ah sheekh waa kaftan iyo kululeys sarabta u qaad adiga ku taala laakiin hadaa barnaamijka ka haysa saaxiibada la sii gaar hadaada ka helin dislike commentiga noogu soo sheeg commentiga waxaa noogu soo sheegaysaa sida aad jeclaan lahayd in wax kugu soo sheego commentiga waxaa noogu soo sheegaysaa waxaa naga damacsan tahay ugu dambeyn halkaas kusoo gabagabeynaa caafimaad idin rajeynaa maalin wanaagsan habeen wanaagsan waqti wanaagsan xilliga u tahay magacayga waxaa ibraahim ayaan le intaasoo barnaamijkan noogu weeyaa maca salaam